howlgallada joogtada ah iyo kuwa sida gaarka loo qorsheeyay wadaan ciidanka difaaca Puntland ee BSF waa kuwa aan dhamaad lahayn tan iyo inta deegaanada Puntland laga ciribtirayo kooxaha shirwadayaasha ee diidan jiritaanka dawladnimada Soomaaliya. ciidanka amniga Puntland ee BSF oo ka duulaya xogta ay ka heleen madaxii amniyaadka iyo qaraxyada u qaabilsanaa nabadeedka Daacish ee gobolka Bari Abshir Tooshle iyo ku-xigeenkiisa Aadan Maxamed Xasan oo magaciisa afgarashadu yahay Shaafici ayaa weerar qorsheysan ku qaaday saldhig kamid ah saldhigyada ay Daacish ka samaysatay buuraleyda Calmiskaad. ujeedka duulaanka ciidanka BSF ayaa ku qotomay soo afjarida saraakiil ajnabi oo ka shaqeynaya dhagarta loo geysanayo shacabka Soomaaliyeed. waxaana halkaas dagaal ku dhexmaray ciidanka BSF iyo kooxda Daacish waxayna ciidanku ku guuleysteen inay halkaas ku dilaan in ka badan 20 dagaaliyan. dhanka kalena waxa ay burburiyeen taliska Toga iyo Cameyre oo laga soo abaabuli jiray hagardaamooyinka loo geysanayo shacabka aan waxba galabsan iyo ciidanka. taliskan ayaa ahaa meeshii Aadan Maxamed Xasan lagu baray sida loo sameeyo qaraxyada lagu dhibaateeyo bulshada. waxaana ka qayb qaatay barista qaraxyada nin lagu magacaabo Cabdiraxmaan Faahiye oo magaciisa afgarashadu yahay Ibraahim. Abshir Maxamuud Cabdiraxmaan Tooshle ayaa dalka uga baxay safar shaqo oo gaaban isagoo u aaday dalka Cumaan wuxuuna ku maqnaa muddo kooban. Abshir intuu dalka ka maqnaa waxaa shaqada sii hayay Aadan Maxamed Xasan oo ahaa ku-xigeenka Daacish u qaabilsan gobolka Bari. dhanka kale taliskan ayaa ahaa kayd la geeyo lacagta baada ee lagu dahaaray sumada diinta Islaamka ee ka qaadaan qaybaha kala duwan ee bulshada. ciidanka ayaa ku guuleystay inay weerarkaasi ku soo afjaraan saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda Daacish Soomaaliya waxaana kamid ahaa Khalid Jaamac Maxamed Usama oo loo yaqaano Abu Usama al-Muhajir wuxuuna u dhashay dalka Pakistan kaasoo u qaabilsanaa qaybta sahanka iyo tababarada shirwadayaasha Daacish buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari. waxaana uu bulshada deegaanka u geysan jiray dhac iyo baad joogta isagoo burburin jiray barkadaha ay biyaha ka cabaan. sidoo kalena xoolahooda ayuu uga qaadan jiray xoog isagoo ugu hanjabaya inuu dilayo haddaysan xoolo bixin. Abu Usama al-Muhajir ayaa sanadkii 2010 ku soo biiray Al-Shabaab. isla sanadkaasi ayuu ku dhaawacmay dagaal dhexmaray ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab oo ka dhacay magaalada Muqdisho gudaheeda. kooxda nabadeedka ah ee Al-Shabaab ayaa waxa ay markii dambe ku xukumeen 1 sano iyo 8 bilood oo xabsi ah kadib markii lagu helay inuu xidhiidh la sameeyay iskuna dayay inuu ku biiro ururka gumaadka shacabka Soomaaliyeed ee Daacish isagoo oo daneynaya markaasi ballanqaad ay u sameeyeen ururka Daacish si uu ugu fuliyo howlahooda una bixiyo xogta Al-Shabaabta uu ka soo baxsaday. Abshir Tooshle iyo Aadan ayaa ciidanka BSF la wadaagay in al-Muhajir ka soo baxsaday kooxda Al-Shabaab kuna soo biiray kooxda ku dhuumaalaysata buuraleyda Calmiskaad ee Puntland. waxayna ciidanka BSF xilligaasi wixii ka dambeeyay qorsheeyeen weerar ka dhan ah taliska Toga iyo Cameyre iyagoo tixraacaya xogta ay bixiyeen Abshir Tooshle iyo Aadan. weerarkaasi ayaa noqday mid lagu guuleystay waxayna gabi ahaanba ciidanku cagta mariyeen godkaasi iyo shirwadayaashii ku dhuumaalaysan jiray. Khalid Jaamac Maxamed Usama oo loo yaqaano Abu Usama al-Muhajir ayaa ahaa xubin muhiim ah waxaana uu qaabilsanaa deegaamaynta dhulka ay ku dhuntaan waxaana uu ka tirsanaa saraakiisha Daacish ee ka howlgala gudaha Soomaaliya.